madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ka daahfuray shirweyne ku saabsan arrimaha deegaanka gaar ahaan dhaqangelinta sharciga maaraynta deegaanka oo dhowaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug soo saartay islamarkaana ay meel mariyeen labada gole ee fulinta iyo baarlamaanka una saxiixay madaxweynaha galmudug. shirkan oo maanta looga hadlayay dhibaatada lagu hayo dhirta iyo duurjoogta ayaa lagu sheegay in dhaqangelinta sharcigan cusub uu joojin doono dabargoynta lagu hayo deegaanka iyadoo laga shaqaysiinayo hay-adaha amniga iyo laamaha cadaaladda ee fulin lahaa sharcigan iyo shuruucda kale sida uu furitaanka shirka ka sheegay wasiirka wasaaradda deegaanka senator siciid siyaad shirwac. laga bilaabo maanta waxaan rabnaa inaan hirgelino ku faafino dhammaan deegaanada galmudug ka hirgelino ciidan aan samaysan doonaa nala ku maalgelin doono ciidan markaan leeyahay ciidan labisan oo aan dalka laga aqoon maahane waa ciidan loogu talagalay ilaalinta deegaanka oo wasaaradda shaqaalaheeda ka mida oo sharcigeeda gacanta ku wata dhuxul dambe oo inta la soo jaro geedo qoyan salka koombo cusbaa looga shubo waxaan ognahay waxay isticmaalaan oo dhan aan soo daraasaynay geedka halkaa ku yaala la imaanaya salka laqoda laba koombo milixaa lagu shubaa usbuuc kadib waxaa arkaysaa geedku caleemuu ka duusha cid aan ugu dulqaadayna lama arko ayaan dhaweed mudane madaxweyne dalkan hadda waxaa ku soo guryo noqonayaa markii la maqlay wasaaradda deegaanka loo sameeyey ilaahay xigmadiisa xayawaanadii ka guuraa soo noqonaya laakiin maxay kuugu taallaa waa dilayaan halkaa ayaan dhaweed laba shabeeloo halkaa ka timid oo nin iyo naagoo iswata baa halkaa noo yimid waa noo dhali lahaayeen midaa laga taqallus tiyaa ilaalinaa hadda oo aan meel kayna ku ognahay odagii ayaa u goobeen odagii waa la dili. xeeralyaha galmudug cabdicasiis nuur xuseen iyo guddoomiyaha maxkamadda sare cabdulaahi maxamuud gacal ayaa iyana madasha hadalla ka jeediyey. sharcigan maanta hor yaalla sharci kasta wax kasta oo dadka lagula xisaabtamayo waa inay noqdaan wax gaar ah. sharci xeerka ciqaabta noo yaallay environmental law ayaa hore u jiray laakiin sida dekreetada madaxweynaha ku xusan sharciguna uu qabo waxa weeyaan dadka waxaa lagula xisaabtamaa sharciga gaarka ah. sharci gaara ah ee laga soo saaray deegaankii ayuu noqonayaa sharci number 1. waxaa ugu badan hadda dhibaatooyinka deegaanadeenna haysta na waa yaraantii dhirta xaalufintii deegaanka dhirtii oo dhuxul loo bedelay sidaa ogsoon tihiin. annagu garsoor ahaan waxaan ballan qaadaynaa haddii la soo qabto dadka ku xadgudbaya deegaanka xafiiska xeerlaalinta uu ka gubto waajibaadkiisa uu hor keeno inaan wixii sharciga ku qoran garsoorku ku xukumaayo kuna ciqaabayo. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ciddii sharcigan ka soo shaqaysay iyo saxiixa madaxweynaha oo sida degdega uu u saxiixay annaguna kaalinta aan leenahay waan qaadanaynaa waana fulinaynaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ugu dambeyn madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor oo u mahad celiyey mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug ayaa caddeeyey in dhaqangelinta sharcigan deegaanka uu gacmaha qaban doono kuwa xaalufinta ku haya dhirta iyo daaqa. dadka wax ka raadinaya sida qaldan oo isticmaalaya ama dhuxusha la shito soo jaraya ama u dhoofanayaba waxaan rabnaa in lala tiigsado sharciga looga gacanta laga qabto laga badbaadiyo deegaanka. ilaalinta deegaanka waxay hadda runtii ka leedahay adduunka oo dhan si weyn bay u leedahay ayaa fiiro gaara u leedahay. meelaha aan sharcigu sida adag uga shaqaynayn baana looga faa'idaystaa meel kale oo looga faa'iidaysan karaa ma jirto. waxaan rabnaa inuu guud ahaanna sharcigu shaqeeyo sarreeyo deegaankana si gaara isha loogu hayo. runtii meelo badan baan ku aragnay iyadoo aanay jirin baahidaas aan soo sheegnay oo isticmaalka qaldani ku dhacayo. waxaan rabnaa runtii aan halkan aan ka ammaano
wasaaradda madaxda wasaaradda iyo howlwadeenadeeda muddadii koobnayd siday u shaqeeyeen. Galmudug ayaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay dadaal badan ku bixisay sidii loo heli lahaa goobo lagu xanaaneeyo duurjoogta iyadoo la dhowrayo dhirta oo dhuxul laga shido, waxaana marar badan oo isxigxiga wasaaradda deegaanku qaybisay agabyo loogu talagalay in looga maarmo adeegsiga dhuxusha oo si bilaash ah loo siiyay kumanaan qoys. Cabdullaahi Warsamar, warbaahinta qaranka, Dhuuso Mareeb.